kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa nabad waa marka la yaamintii aan ku kulmi jirnay barnaamijka Tusmo daawadayaal barnaamijka Tusmo waxaan ku soo qaadanaynaa toddobaadkan qaybtii labaad ee sheekadii Nuruddin oo toddobaadkii hore noo joogtay socdaalkiisii markaasi uu ku galay badda ayadoo badda ay ku kacday oo markaasi isaga iyo dadkii ay la socdeenba ay xaalad aad u adag oo noloshooda ay halis gashay ay la kulmeen kadibna uu marka ku yimid ee uu badbaadiyay oo geeyay Talyaaniga haddaba sheekada waxa uu nooga sii bilaabayaa markii uu Talyaaniga galay ee uu qaaradii Yurub cagaha saaray meeshii uu socday waqtigii uu gaadhay wixii uu la kulmay dhibaatooyinkii uu la kulmay iyo wixii uu sawiranayo waxyaabaha kale ee uga soo baxay iyo sidoo kale go'aankiisii dib u soo laabashada ee qaaradda Yurub ee oo markaasi uu dib ugu soo laabtay ee dalka iyo haatan dalka waxa uu ka qabto waxa weeyaan waxa soo gaaray guushii safarkayga iyo miradhalkii safarkayga Yurub ayaanu cagaha soo dhignay horiya hebel imka ma Yurub baynu joognaa iyo ma Yurub baatani u qaadan waa Yurub magacu u fiican yahay laakiin maxaa hoos yaal hoos loo meego kuyuubana laga soo dhaadhiciyo markabkii iyadoo farahayga la eegayo kii finan yar kula gaar loo dhigayo kii caadiya dhaqaaq la leeyahay kabihiina laga bedelay ayaa basasna la saaray baskiiba 60 baa la saaray waa halkii aanu saaxiibadaya ku kala baydhnay dadkaygii laa inta isku soo xidhnaa aanu kala farqiga ku noqonay nin kastaba wadan tagay 60 aan ku jiro Roomana la geeyay dibna loo soo celiyay magaalada Alexandria la yiraahdo la keenay toddoba naloo sii qaybiyay toddoba reeb raxweyn ah oo nimanka koonfurta ah oo aniga iyo inay yar oo reeb Puntland ayaa wax Soomaali kun kala manana faqoon niman bay haayeen ayaanu gurina la wada geeyay albeerkadii baanu adu wax ku yar cunay xaafadii aanu la soo hadalnay oo aanu u sheegnay inaanu Yurub galnay gelin dambana la geeyay kiniisad anu markii kiniisadda aanu u galnay aan jiri dhacooday oo markaan gurigeygii ka doortay kiniisad in gami waayay inay warinoo taliya aanu ka yaacno meesha kiniisadda habeenimada aanu kuma gamin maalinnimadii bana laga kaxeeyay waxaana loo geeyay gabadhii albeerkadii dibadda gaadhayna soo saartay gaadhigii markii ayna soo saartay ayaa dhakhtarna la keenay dhakhtarkan caafimaadkayga la eegaya wax kale noo qaban maayo waxaana la marinayaa dhiiqo baasha boomaatada la yiraahdo yaana marinaya waxaana marinaya qof dumar ah nimankayga ragga ah ee islaamka sheeganayay gabadh aan diinteedu noo banayn in ay jidhkayga ka shaqeyso ay u mariso waan ka diiday halkan Yurub baa la yiraahdaa in danto ad yeeshay noqonayso in dharkana laga bedelo kaniisadina lagu celiyo ayna tiraa aroorta kamayda dhar kalena oo idin keenaya wanu ka maydhanay dharka intii ay soo waday baan ka baxsanay si aan farana uga dhigin Talyaaniga oo tareen raacnay oo ku tagnay Juventus oo Soomaali kala u tagnay sidee baan uga sii gudbay Yurub oo aan Switzerland ku tagay oo aan kula kulmay nolol aanan geyin nolol ay ii dhaanto tii Liibiya oo tii Liibiyana ay tii wadankaygu ka sii wanaagsantii in aan cunto ku u galo in hurdadeedii la controlo in suuq u baxaystaydi time loo sameeyo in anoo hagar la'aan biyaha cabba cuntada cuna waxaan u baahdo soo qaata in la soo koobay in yaroo kooban aanu ku xirnaano بالود باللي قارب السيجار كعبة هاش كاي لا قرطه
ayay noqotay oo kolba marxalad aad gelayso Hargeysa meherad baan ku haystay anu waxa weeyaan qofka waxa kaxeeya waa hunguri xumo waxa weeyaan qofku marka uu tiisa alxamdulillah oran waayo wixii alxamdulillah idaas ay u keentaa dhibkeeda uu arkaya waxa weeyaan markan Hargeysa aanu joogeen shaqaysanayay jeeb walba lacagta aan ku haystay Yurub tagay jeebkan taabtay u maran yahay kan kala aan taabtay u maran yahay war maxay badan adise soo galisay assalaamu calaykum waay hebel waay nin aanu iskaranayna aan waay caddaan dhex bowday waxa weeyaan waxa aan u sheegayaa Soomaalida wadankii joogta ee maanta nabadgelyada haysata ee caafimaadka haysata ee quruxda haysata ee wadankoodii iyo nabadda haysata maanta Yurub dhibaatooyinka yaala waad arkaysaan wad u jeedaan waxaas ma aha caano qaraf weey ilaahay baa samada ka keenay dad baa ku nool siday ku nool yihiin ilaahay baa og annagu maanta Yurub baan joognaa dhibaatooyinka koobaad ee aan Yurub ku arkaynana dee baalkaas ka mid ah markaanu dhalinyaro waxaan kula talinayaa in ay wadankooda joogaan in ay diintooda haystaan in ay dalkooda aaminsanaadaan in ay isku duubni sameeyaan in ay waxa tahriibka leeraa ay ka fogaadaan kala warramo dee maxaaban kaaga warramiba ninka taa ku dhex nool ma nolol buu haystaaba waa waxa aad arkaysaan waxa weeyaan waa baraf weeyaan teeda labaad waxa lagu siinayaa waa nolol qiyaasan waa lacag la doonayo in ay kugu bargo'do waa wax aan loogu talagelin in aad ka dheregto teeda labaad dadkii ku tuhmayaan oo ninka Yurub buu joogaayo lacag buu hayaa ayaa la oranayaa wallaahi baanay Soomaalideena halkan joogtaa cid lacag haysataa aanay jirin ilaahum baa og xaalkooda waa la wada ooyaya waa la wada cabaadaya marka saasan idin kula talinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi dadka halkan ka yaacay ilaa qudhaydana dee waxa la filayaan saa lacagta loo xaadho Hargeysa bad ka helaysaa 500 qof ka dhacday عيد وحلا يراد لو سينيا عيد ونده وا ريركي نو دن لما ودا سينيا oo shakhsi ahaantada la siinaya xawiyaan Yurub عيد lagu siinayana wax yar qiyaasan oo noloshaada un ah xawiyaan anu Yurub dad kan asxaabta la noqday anoo ka yaaban salaamu calaykum mid itraah oo waayi oo eedan dhagahaygaasi maqli waayeen oo uu ka batay jiliska kaniisado ayaa nin aanu saaxiibnay oo aduu maruu inta badan isarki jirnay ayaa maalmaha ka mid igu yiri war shaqaan helay dee waa asal sifi alxamdulillah ka shaqayso balse wuxuu yiri shaqadii salaadii la ima ogola salaadii la ima ogola daam xaw shaqo ka tahay si daaban ku yiri oo fikra ونبل ماشي عاد شقدينا الصلاة دي ميلها قارنا لقاقو وقلانا ميلها قارنا سيدا تل الديدة يبه حرابة السلام عليكم يو ايضان با انا دو مقل تشريني وحي اسكو اوت كان انقلا حويا الدنيا ده الدنيا لو ما أرضي واتشانو ايا لو دقالما تشانو دو نوحي تالا حد بوالدك هلكو تشوغو سببه انا يقول دليي ان ودن خادي بوغا سو نقدو ودنكayga ku soo noqdo waxa weeyaan niman 7 nin ahaa oo aanu saaxiib ahayn oo magaalada deganeen baan u yeeray koonahan magaalada uga baxnay su'aal baan weydiiyay intaan buur fuulnay magaalada aynu deganahay sida uu eega su'aasha aan idin weydiinayana waxay tahay magaalada imisa masaajid ayaa ku yaala imisa بيد با إلهي لغو عابده ونكويني تاسي نكون الله نقول أنا ونقونا يا نواشي وحي نقود دي ستريس فكر عيدا كبضن إن أدهاش كدولك كقرود إن طوانك أشياء بشها هذا ريركيني وحصا يردرتو أمر ريركاقي إن mushaharkaagii intii caydhi aad qaadatay ay kugu bargoodo horta waxa weeyaan
dhalinyar badan oo aan ku ogaa meesha waqtigii aanu wada joognay niman nool ahaa oo dhabankoodu taagan yahay waqtiga aan kula hadlayo markaan wada xiriirno nimankii jir ahaan iyo bilic ahaan aad ay isku bedeleen waxa weeyaan nin haddii maanta reerkooda guri ay u iibiyeen ay ku badbaadiyeen oo uu Yurub tagay dee mid baa meesha taalo waxaad ogaataa gurigaa intii la siiyey kharashkiisii in aanu weligii ka dhaxeleen Yurub weligii aanu ka dhaxeleen Yurub isaguna haddii uu israaniyo iska noqo way ku jirtaa qalbigiisa laakiin ونو هو يدا يرهير كيني أياد عير كدكتاي محاد كلا نقن أنا واحد كل حساب تمام ولا الخي العكس يجيب بحيي فقر كمان نقنيه أرساق باوقرن مركي أن يوروب تجي كمان بقى يوروب مركي وضن خيجا كسر نقنينا إن وضن خيجا كبقى معها وايو يوروب تكون بلوليس ده وضن خيجا نقولنا تكسر أرض أو تكسر فرحضه أيوة ناكسين رجع النماذج السجى يشرفت يوناج أد وضن خيجا كويدنا ميل خلكم هليست meel kaloo aad ku helaysaan ma jirto waxa weeyaan inaan haduu maqan yahay oo hooyadii halkan leedahay inaan baa maqan oo Jarmal ku jooga wuxuu la joogaa waa maxay waxa aan soo noqday iyadoo reerkaygu igu faraxsan yahay iyadoo hooyadii igu faraxsantay iyadoo aabahay igu faraxsan yahay iyadoo dhammaan shacabkii iyo wixii aanu aqoon isku lahayn ay aad ii soo dhaweeyeen waxa aanan waqtiga marka aan Yurub joogay ay igu dhalatay iyadoo aan 3 bilood ku taamiyay sidii aan u noqon lahaa aan u tagay kii caydana siinayay oo aan ku hore Tony waxaan doonayaa inaan wadankii ku noqdo uu ila yaabay oo ninkaaga intaas oo dhiba soo maray maxaa ku celinaya ما يبان هو الجوان كأنا جاري هذا الشقة هذه تانا يقبو هذه أنا الشقة هذه هينا يجود بحفيزك وحفيزك immigration كله يجود بيه وحفيزك أنا وشيك تعود سجيجي إني وطن خيجي اللي عليا يندونية هل كاسن خيمد وان نبض هلي عليه سيدي بعص عد سجيجي لايقا قبلي سيدي بديارات لايقو سو صاري أو أنكو إمد هرجيس أنك جسودك أو اللي بنا يرهدم الكينو كهذا الجنين هرجيس كور سنوني سنسان حال كاي كورسان وحديث سمي تخانا هدي إلى هيرا انت هارتي تري انت شو يمسا شن بقل سما شن بقل كو لابا شنو تنالا كيني كنت فاهم كنت أري أري بس كرتون بسكنية يوين لو بسلا يسوي كيجي
ما يمرني يا لو بنسل هو 20.4 وهي صوت ياري وان سيدي انا بس تينا ساقطه بس تينا ساقطه كان بس تيدي حويان قرباء عن وقت كيجا كل مية وحن كدورتين عن وضع كيجا كحماشو وعن كشقيستو وعن وضع كيجا آمنو تاسان كدور بداي وحويان دي وحي عد وضع كيجا كاويدو كميه اللي كنتير ميال كلاي قربانا دي وحن كلا كلمونين عن كيو عنتدا وجودشيرو عن قال اسكود بتاعك دي نلا شيدا يمكن دي كله والله أركي إن الحمالين أيو ودمانتا عيد أن قال كسجوين عن حوجي خلاص صباحه وعن كوكا خلصانة هاي بالحرية نبتقليو عد أنا أورانين محاض هاي عد أنا ويدينين شرعي وواحد استبدأ وده فيك كهيليو قول بان كتير تقول ما أنت منك ودوه دقيسة كحمل شو وحكونا إنسان ماله فركا ما أنت كلي وحوي قف كستا ضمير iyo aqli leh uu garanaya maanta de waxa wadankiisa yaala waxaad wadankaaga ka weydana meel kale ka helimays marka in wadanka laga xamaashado mid kaliya ugu wanaagsan in guulna lagu gaari karo aad baan u fiicnaa maxaa ku siiya may maxaa ka iibiyaa spread ha مدوينو سبرايدا سيدا ويه طيب بمسوا عادي مدبيا قوبه وي والله بيه بلاي
intaas ayaan daawada kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Tusmo oo aanu qaybtiisii labaad ee ku soo qaadanay sheekadii Nuuraddiin ee markaasi isagoo galay qaaradda Yurub waqtiga qaaradda Yurub uu joogay waxyaabihii uu kala kulmay go'aankiisa dib u soo noqoshada dalka dib ugu soo laabtay iyo haatan dalka waxa uu ka qabto ayda barnaamijkan aan kaga sheekeynay oo aan kaga warramaynay dhalinyarta dalka ka tahriibtay ee ka baxda ee u socda shaqaaradaha kale oo iyagu ugu badan ee qaaradda Yurub inta badan ee hiigsada oo halkaasi taga ee malakuman wixii ay sawiranayeen ama noloshii ay ka sawiranayeen halkaasi ay halkanba uga tageen barnaamijka qaybtiisa dambe ee saddexaad ayaa isagana waxaan ku soo qaadan doonaa mid kamid ah dhalinyarta ayaguna dalka ka baxay ee u socda qaaradda Yurub ee markaasi haddana dib uga soo laabtay isagoo si iskooda ay uga soo noqday oo markaasi dalka haatan ka shaqeysta inta badan waxa ay la wada soconaa in marka qaaradda Yurub ee la tagayo dhalinyarta u socdaaleysa ee dhulkaasi qaaradda Yurub tagaysa in laba qaybood ay socdaalkooda ku maraan ayagoo qaybna ay marto Libiya iyo Suudaan iyo dhulkaasi oo xaggaasi Talyaaniga ka gashay qaaradda Yurub halka qaarka kooda kalena ay maraan Iran, Turkiga iyo Greek iyo dhinacaas ay ka soo wareegaan oo markaas ay Talyaaniga iyo dhinacaas ay ka galaan Yurub ayaa isaguna mid kamid ah socdaalka kale ee iyaguna dadka halka mara oo inta badan ay yiraahdaan dhalinyartu kaasi ayaa ka wanaagsan ayaa haddana waxa jirta dhibaatooyin kale oo aanay inta martay ka war haysa humaaga oo sawiranaysa dhibaatooyin fara badan oo dadka halka maray ay ka sheekeeyaan ayaa waxa jirta isaguna wiil kale isaguna bartaasi maray oo qaaradda Yurub halkaasi ka galay oo dib uga soo laabtay barnaamijka qaybtiisa saddexaad ayaa daawadayaal ku daawan doontaan wiilkaasi iyo isagu dalka dib uga soo noqday haatana dalka ka shaqeysta tan iyo kulanti dambe oo Maxamed Ismaaciil Xamdulle iyo muuqaal duubayaasha barnaamijka oo ah Maxamed Cabdilaahi Cali Maxamed Soomaali Foosi Axmed Caynab dhinaca muuqaal duubida studio-huna waa Jamaal Cali Dheere iyo Maxamed Axmed Xawaale tan iyo kulanti dambe nabad geliyo